in aad gasho guri oo aad ku aragto qof kuu shubaya shaaha, kula hadlaya, xitaa kula qoslaya, laakiin qofkaasi uusan ahayn bini'aadam sax ah, taa beddelkeeda uu yahay robot, waa wax ay hore u ahayd sheeko iyo madadaalo aan suurtagal la ahayn dadka, laakiin maanta waa run. Sheekadii ayaa run loo beddelay. Dunida maanta, robotyadu ma aha kaliya mashiin, balse waa kuwa leh aqli iyo garasho intaba, waxayna u hadlayaan una dhaqmayaan sida dadka, ayadoo wax walba xagga Alle ka idman yihiin. Haddana sanadihii u dambeeyay, tiknoolajiyadda robotyada waxay gaartay meel aan hore loo malaysan karin. Sanadihii u dambeeyay, laga soo bilaabo 2020 ilaa iyo sanadkan aan hadda ku jirno ee 2025, robotyadu waxay noqdeen dad kale oo aqli leh. Waxay ku shaqeeyaan sirdoon macmal ah, waxay bartaan sida dadka ay ula dhaqmaan, xitaa wax way xasuustaan oo way fahmayaan. Robot uu soo bandhigay Elon Musk sanadihii tagay, robotkan wuxuu sameeyaa dhaqdhaqaaqyo bini'aadamka oo kale ah, sida inuu qaado shay, inuu socdo, xitaa inuu sida qof caadi ah oo kale u hadlo. Yaabka kale ayaa ah robotyada ka jira dalka Japan. Dalkaas waxaa ka jira robotyo sameeya cuntada, kuwa guryaha nadiifiya, iyo kuwa dadka waayeelka ah la sheekaysta. Waxaa jira xitaa robotyo ciyaaraha ka qayb gala, kuwa u shaqeeya sida askar, kalkaalisooyin, ama xitaa macallin. Robotyadu hadda waxay qayb ka yihiin nolol maalmeedka caadiga ah ee bini'aadamka. Shirkado badan ayaa isticmaala robotyada si ay u soo saaraan alaab. Isbitaallo ayaa ku shaqeeya robotyada, waxay ku sameeyaan qalliinka. Xitaa ciidan ayaa loo isticmaala robotyada ayagoo u adeegsanaya sirdoon ahaan. Sidaa darteed, mustaqbalka wuxuu noqon karaa meel ay dadka iyo robotyadu wada shaqeeyaan, mid walbana uu kaalintiisa leeyahay. Sanadaha soo socda, robotyadu waxay noqon doonaan kuwo aad u aqli badan. Waxaa la filayaa in ay noqdaan kuwa ku hadla luqad kasta oo uu bini'aadam ku hadlo, fahmo wejigooda iyo dareenkooda, xitaa wax ka barta dabeecadahooda. Waxaa jira shirkado hadda tijaabinaya robotyo la socda carruurta, kuwa dadka waxbara, iyo kuwa nolosha guriga ka dhigaya mid fudud. Waxaa laga yaabaa daawade inaad adigu dhowaan yeelato robot kuu noqda saaxiib ama kaa caawiya wax kasta. Su'aasha ugu weyn ayaa ah, robotyadu ma waxay noqon doonaan caawiyayaal oo keliya, mise waxay noqon doonaan tartamayaal la tartama dadka? Fadlan nagu soo biir haddii aadan horey noola socon. Haddii aad nagu soo biirtayna, like iyo share ha naga ilaawin. Mahadsanid.